madaxweyne Cabdicasiis Maxamed oo ku magac dheer lafta gareen wuxuu ku dhashay degmada Luuq ee gobolka Gadow sanadkii 1970kii wuxuu leeyahay hal xaas iyo saddex caruur ah waxbarashadiisii dugsiga hoose dhexe ee sare wuxuu ku qaatay isla degmada Luuq wuxuu Luuq ka ahaa macallin iskuul magaalada Muqdisho ayuu jaamacad ka dhigtay Cabdicasiis lafta gareen wuxuu bartay culum kala duwan sida culumta siyaasadda ee jaamacadda Oneida oo Mareykanka oo shahaadooyinkiisii oo kaga qaatay maamulkii maareynta iyo dib u heshiisiinta madaxweyne lafta gareen wuxuu horay xilal badan ugu soo qabtay dawladihii kala duwan ee soo maray dalka Soomaaliya sanadkii 2007 wuxuu ahaa maamul ku xigeenkii furdada xamar wuxuu xubin ka ahaa baarlamaanka isdiidaad iyo midkan tobanaad shantii sano ee ugu dambeysay wuxuu noqday wasiirka tamarta iyo biyaha sidoo kale wuxuu noqday wasiir doole wuxuuna ka noqday wasaaradda ganacsiga sidoo kale wuxuu noqday wasiir ku xigeenka kalluumeysiga sidoo kale wuxuu noqday wasiir dowlaha warfaafinta sanadkii 2008 wuxuu xukuumadda ra'iisul wasaare Nuur Cadde ka soo noqday wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada sanadkii 2009 wuxuu xukuumaddii Cumar Cabdirashiid ka noqday wasiirka gaadiidka iyo arrimaha badda isla xukuumaddii Cumar Cabdirashiid wuxuu sanadkii 2010 ka noqday wasiirka xanaanada iyo xoolaha xukuumaddii ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wuxuu noqday wasiir dowlihii boostada isgaarsiinta iyo warfaafinta xukuumaddii Cabdulla Sheekh Axmed wuxuu noqday wasiir ku xigeenka kalluumeysiga xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyr wuxuu ka noqday wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga wuxuu horay ugu tartamay xilka gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya wuxuu ahaan jiray wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu dambeyn shalay wuxuu noqday madaxweynaha koonfur galbeed